السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكم هذا التيف تضبط كمان ما كم إذا نقدر وتان وأنا حسين شق ظاهرة وورك يدي سول تبين دورة مدحونا قرن كتبون اسمه لنا أيام قعبة هود قد حير قرن كواسو حلو لتشنت قرن كا يجو نقول دورة كوا كلا ولا تمر كا مدحونا كيجين كبرلمان كجديدة يوسير هذا جسمياش وحها يملك الصو حلو لتشكل عيسو كواسو مرين دورة شرعية كاسو قفكي حلقة هي صحيح قارة دو صحيح أو قاتدين أما أريمة كله سجى مدرسة نقد دونتو سنة ديار دونان ديوان كحلو رجدا مدحونا كحين كجمهور سمالا مدنا مع أحمد أو علي فارح هي كدقي مقالة بورما هالكاسو كعتمي إلا قبل كسر هالكاسو الغلاسوكية أتوات كده بيكسعين هرنا تم مدحونها قرن كأي سويري لبان بقولياش قلت iyo xisbiyada qaranka iyo baarlamaanka halkaas uu ka dhageystay arrimaha ka soo cusboonaaday balse loo xilsaaray madaxweynaha ku-xigeenku inuu arrimaha jinjeel iyadoo ay hore wufuud badan iyo nabad badan arrinkaasi muddo shan bilood soconayay maayarka magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooga ayaa sheegay markay 5 sano u dhamaatay inaanu ka digayo xilka iskana casilayo walow komishiga doorashada cusubeen muddo sanadan lagu daro halkaas baa isla qaateen in xisbiyada qaranka madaxweynaha qaranku uu soo dhaweeyay balse loo baahan yahay in golaha guurtida baarlamaanku ay ansixiyaan golayaasha cuqaasha bulshada reer magaalada Hargeysa ayaa u soo jeediyay maayarka inuu muddadaasi dhamaysto lana shaqeeyo xilliga doorashada iyo xilliyada lagu sameyn doono madaxweynaha Xasan Sheikh ayaa ka digay magaalada Baydhabo halkaas laba casho ka hor la isku farsaaray dowladda federaalka Soomaaliya gudoomiyihii ama madaxweyne goboleedkii koonfur bari taasoo haatan ay dowladda federaalku gacanta ay ku hayso lafta garina khadka laga saaray golaha madatashiga qaranka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka soo jeestay gacan ka hadalkii dhexmaray dowladda federaalka Soomaaliya iyo lafta garin oo ay sheegeen in aan loo baahnayn wadatashi qaran in markasta la talaabo la qaadin laga yeesho aan loo baahnayn in la qaado dagaal sokeeye kuwaas ku baahi kara dad bulshada taasoo sheegeen in madaxweynaha Xasan Sheikh haatan aanu awoodiisu ay tahay inuu ku muquuniyo fikirkiisa bulshada iyadoo ay u halsiyeen madaxweynaha sida sheegeen xilli loo baahan yahay doorashadiisii in la qaabiyo ama se la diyaariyo dagaalka bariga dhexe ayaa meel qaraar maraya xilligaas laga baqayo inuu halkii hore ka gudboomiyo kaasoo haatan muddo bila soconay dhinaca Iran ayaa guula sheeganaya halka Mareykanka iyo Israa'iil ay sheeganayeen in bamba soo abtireen in kala laayeen saraakiil badan iyo dhul badan oo keedka sida qaabiyaha leelka iyo dhulka ay ku kaydsadaan hubka iyo ciidamadooda saldhigyadooda ay sheegeen inay aad u garaaceen dagaalkan ayaa ka duwan kuwii hore ee dunida lagu dagaalami jiray oo ah mid gantaala iyo tiknoolajiyad aad u sareysa lagu dagaalamayo halkani waa hadalkii fududkii maamulka kamid ah naga daawataan kusoo dhawaada warwaxaal iyo daafac calamka waxaan idinka haynay madaxweynaha Soomaaliland Madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiraahi Ciro ayaa guddi heer qaran magacaabay kuwaasoo la sheegay in iyagu marka xilka laga degayo ama xil qofka loo magacaabo xil wareejinta ka dhacaysa iyagoo ay u xil saaran yihiin diiwaanada lagu kala wareejinayo madaxweynaha ayaa xusay qofkii isagoo xil wareejintaasi arrin gaar ah ama hantida uu damintay aanay marin wasaaradda ama cidii loogu taamo guddiga qaraasada ama cidda ku shaqo leh ama heer madaxweynaha noqoto ama heer baarlamaan ha noqoto ama xildhibaanada hantida ummadda ay u baahan tahay ama goobta uu ka shaqeynayay ama wasiir ku ahaa hadduu deyn qaatay ama uu bixiyay qandaraasyo aan loo baahnayn isaga ay dumadiisa tahay hadduu qasanta kala baxay hanti aan loo isla ogeyn ama uu qaatayba deyn aan la isla ogeyn xil wareejinta kuma jiri doonto waxay noqon doontaa mid la mariyo shuruucda caalamka haddii ay cadaalatana dib lagu hadli doono balse aan xilligaasi noqon doonta xil wareejintaasi mid ka hadha oo dumadiisa isagu markii xilka laga qaado uu soo cadeyn doono hantidaasi halka ku baxday ama halka uu amaahday gabi ahaanba madaxweynuhu hoosta ka xariiqay qofka shakhsiga ah wixii isagoo gaar u saxaa inaanay ku jirin hanti qaran lagu lahayn hanti qaran noqon doonin mid qaranka loo raaco oo markii horeysay guddi heer qarana la magacaabo taliya intii ay jumhuriyadda Soomaaliland jirtay madaxweynaha ayaa ku dhiiranaya in la soo afjaro in dadka qaar lagu xanto xil wareejinta in ay bixiyaan
ama xil wareejiyaan lacag ku siman 5 milyan 2 milyan 500 3 milyan iyo wax la halmalo iyadoo qorsheynta qaranku ay meelaha qaar ama baananku ay sheegeen inaanay ogeyn goorta xilka deynta la qaatay ama deyn loo soo gudbiyay baarlamaanku ama hantida intaa leeg wasaaradaha inaanay soo maray arrimaha gudaha ama ha noqoto wakaaladda biyaha ama ha noqoto wadooyinka iyo caafimaadka ama ha noqoto beeraha iyo xoolaha iyo badda iyo cirka iyo dhulka ama militariga ama booliska meeshay doontaba ha noqoto tan ayaa noqonaysa tallaabo lagu xadidayo deymaha qaranku qaadanayo madaxweynaha ku-xigeenka Jubilee Somaliland ayaa ku xigtay magaalada Boorama halkaas uu kaga qayb galayo nabadeyn una kuurgalayo waxa dhibaatada dagaalada sokeeya hadda dib u socod balay qabiilada ay dhex maraya Ciise iyo Samaroon kuwaas oo hore nabad la isla qaatay odayaashuna ay sheegeen in wixii arrimaha dhacay lagu wada xaliliyo hoos wixii tolka iyo xididka iyo xigaalka iyo dadka deegaankooda yaala gobolka Salna arrinkooda lagu dhameeyo hoos maadaama yihiin mar walba ay yihiin dad walaalo ehela tolo xidid xigaala hore ayay Jubilee Somaliland ugu guuleysatay gobolka Togdheer iyo gobolka Sanaag iyo Solba dadkii dhulka ku dagaalamay intay dowladda Jubilee Somaliland gacanta ku hayso inay ka soo abshir colaad sokeeyo aanay jirin qof shacab oo tin ka haysta halkana la doonayo in dadka hubka haysta aanay hub qaadan karin ciidamada qaranka ayaa la sheegay in halka ka howlgaleen kuwaasoo qaarkood ku qabqabteen dad iyagoo meel gaar ah ku keensanayay iyo qaar doonayay inay reer kala weeraraan intaba balse la sheegay in lagu soo rogay inaanay qofkii ay ku arkaan ama koox meel isku urursanaysa qabiilka doontaba ha noqotay inaanay jiri karin koox gaar ah oo meel gaar ah hubka haysta ama kala soo gudubta xuduudaha cidii xuduudka ka soo gudubta ama xuduudaha Jubilee Somaliland soo fargelisay meel kale ka timaadana tallaabo sharciga waafaqsan ay ciidamada qaranku qaad wixii gudaha joogana ay dowladdu u xil saarantay nabadooda iyo ammaankooda hore ayaa halka waxa uu tagay madaxweyne ku-xigeenkii wasaaradda arrimaha gudaha iyo dad badan oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka ama golaha gurtiga iyadoo nabadeynta bulshadaasi hore la isla qaatay balse lama garanayo ciidda dibadda ka riixaya dowladda Somaliland ay ku eedeysay inay jiraan gacmo shisheeye oo dabada ka riixaya waxaa la sugayaa bal haatan sida madaxweyne ku-xigeenka iyo waftiga hogaaminaya halkay ku abaari doonaan iyadoo la baryayo ilaahay inuu nabad iyadoo xilli roobaadkina ilaahay uu shubay dadku ay ku jiraan nimco ayaa dadka Soomaaliyeed dhamaantoodba waxaa loogu baqaynayaa nabad gaar ahaan Somaliland waxaa loogu baqayaa waa nabad iyo wanaag inay ilaahoodii ku xamdiyaan maadaama shalto abaar baani ay jirtay maanta raxmadii ilaahay lagu saraha meel balaada lahayo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh ayaa ka degay magaalada Baydhabo halkaas oo laba casho kor ay dowladda federaalka iyo lafta gareeha isku fool saareen iyadoo ay ku guuleysteen halkaan lafta gareerin ka howleelay waa markii koobaad ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ku qaaday dagaal ay ka guuleysay hore Jubaland oo hukuumad Axmed Madoobe ay ku guuldareysatay inay kaga tuuraan xukunka xuduud golaha maatashiga dowladda federaalka iyo bulshada Soomaaliyeed qaarkood ay soo dhaweeyeen halkii golaha federaalka madasha maatashiga ay ka soo jeesteen dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegaysa tahay inay guul inay iyagu ka fuliyaan dhammaan dowlad goboleedyada in xilliga dowladda federaalka ay xilka hayso inay ka hana qaado in qof iyo cod loo dareero lana daayo in qofku iskii isu doorto xeerarka qaar ayaa sheegaya in dowlad goboleedyadu madax banaan yihiin dowladda in arrimooda hoose sida deegaanka iyo degmo doorashadooda iyo dowlad goboleedyadu inay iyagu dooran karaan halka ay sheegeen in codka sare uu yahay dowladda federaalka iyo baarlamaanka iyo guurtida in cod federaal loo qaadi doono si kastoo haataba hore ayaa waxaa loo doortay Axmed Madoobe iyo mudane Puntland Saciid Cabdilaahi Deni ayaa iyagu kuwaas oo iyagu dowladda federaalka wax talaabo ka qaadeen balse ay madasha wadashiga qaranka iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada hore isugu yimaadeen magaalada Muqdisho kuwaas oo lagu guuldareystay in jidkii ka horeeya jid lagu bedelo oo ka hana qaad wanaagsan in la isla qaato taasoo haatan ay ka wada taagantay farmalan dowladda federaalka ayaa iyadu sheegaysa inay guulo waaweyntan u tahay qaranka loona baahan yahay in arrin kastoo jirana laga wada hadlo tanina ay halkeeda loo deyn doono walow madasha wadashiga ay sheegtay in dowladda federaalka ayadoo rabtay inay muquuniso dadka bulshada Soomaaliyeed ee federaalka ku midowday iyadoo ay rabtay inaanay qof cod aanay ahayn muddo kororsi koos laaban yahay halkani waa hadal TV toddobaadkii maalmaha kamid ah naga daawataan dagaalka bariga dhexe ayaa meel qaraar maraya kaasoo haatan muddo bil iyo soconayay iyadoo haatan la sheegayo in Mareykanka laga soo rogay diyaarado horle markii ugu horeysay tan iyo dagaalkaasi intii xilliga uu qarxay diyaaradaha hawada maraya ay soo riday Iran balse Mareykanka iyo Israa'iil ayaa sheeganaya iyaguna guulo kuwaas oo ay sheegeen
inay dhammaanba baabi'iyeen saldhigyadii militariga iyo goobihii kaydka hubka ugu jiray waa dowladda Iran si kastoo haataba dagaalka lagula jiro Iran ayaa kii uga qalaadhay muddada sanawaadkan socda bil inta in leeg kaasoo la isku farasaaray dagaalada dhinaca tiknoolajiyada gantaalaha iyo hubka aadka xogumada ee gantaalaha qaarkood la sheegay inay xambaarsan yihiin nuclear-ka yaryar kuwaasoo meelaha lagu atomic bomb-ka meelaha lagu dhifto uu yahay kuwa aad iyo aad u gelgelaya ama aafad dambe ku reebaya dhammaanba dowladaha carabta ayaa ay ku leeyihiin saldhigyada militariga ee Mareykanku ku leeyahay ayaa dhammaantoodba u howlgala si toosana laga weeraraa dowladda Iran sida Sacuudiga Imaaraadka Lubnaan Urdun Bahrain Qatar iyo dhammaantoodba halka Yemen iyaduna ay dagaal sokeeye ka socdaan kuwaasoo iyaguna ay sheegeen Xuutiyiintu inay la saf noqon doonaan dowladda Iran haddii laga deyn waayo gantaalada iyadoo dadka qaar ay sheegeen in dagaalada Iran ay saameeyeen Yemen kuwaasoo ay gantaalo la dhaceen meelo ay sheegeen inay yihiin ama maraakiib ama ay garaaceen si toos ah Israa'iil iyo Mareykanka isku xulufaa iyo Iran oo gaar ah iyo xulufadooda oo Carab ah ayaa ku dagaalamaya bariga dhexe xaaladiisu ayaa laga baqayaa inuu haatan noqdo isu bedelo dagaal infantry kuwaas la sheegay lagu galayo magaalada Tehran gaar ahaan Iran gabi ahaanteedba halkani waa hadal TV todobaadkii maalmaha kamid ah naga daawata raxmaadka rabbi ayaa laga ka daayay dhammaanba geeska Afrika kaasoo bilii u dambeeyay dadku aafaadka iyo abaaraha ay shalaytole ay ahaayeen kuwa Ilaahay barya dhammaanba Soomaalida wax laga baraya ama loogu baaqaya inaanay xilliyada roobka iyo nimcada ay ka faa'iideystaan oo almiina liis inta deegaan wada digtaa ay galal biyo qabsadaan si tuuga iska soconaya badaha ku darbaya dadku aanay ahaanin kuwa ku faana magacyada abtirsiime ay ahaadaan kuwa ku faana waxqabad iyo nabadeen bulshadana ay dhammaanteedba nabad iyo walaaltinimo wanaagga ay xijaan si loo helo xijin درسة أما الدولة القبلية هنقطة أما الدولة الفدرالية كهي سومالان هنقطة أما جيبوتي سومالان أما كل الكسرانية سومالان أما ضدك الدجانة الصومالية ملك استمكر السجين وحلو بين كفايستان حلقي عبارتي نسون لجوا عيقاته هل كانوا هذا تيف طوات كمان ما كمل رجد وطن وريو على الحديث إني نبض قب ينالكتو بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.